maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaan ku dhex jirnaa trainingkeena waana xalqadeeni lixaad ee form 4 waana xalqadii ugu dambeysay ee trainingkeena ama grade 4ka ama grade 12ka waana xalqadii ugu dambeysay grade 12ka xalqadan waxaan ku qaadan doonaa laba chapter oo kala ah chemical equilibrium iyo nuclear chemistry oo chapterka 8aad ah labadaas chapter aan ku qaadanayna xalqadan marka hadda waxaan soo hormarinay chapter 7 oo ah chemical equilibrium chapterkan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 7 cashar ka kooban yahay casharka koobaad oo ah reversible reaction iyo equilibrium xalaqada ka dhaxaysa reactionada waxaa loo qaybiyaa reversible irreversible reversible reactionska ayaa equilibrium gaara sidaas daraadeeda in calaaqada ay ka dhaxayso reversible reactionka equilibriumka okay chemical equilibrium waxaa la yiraahdaa types of chemical equilibriumka kadibna equilibrium constant xisaabaadka equilibrium constantiga la xisaabinayo equilibrium constantiga oo la xisaabinayo iyadoo concentrations marna waxa la isticmaalaa concentration of reactants and products la isticmaalaa okay concentration is mar la isticmaalaa kaydi sida loo xisaabiyaa marna the equilibrium quotient-ga iyo factors-ka saameynta ku leh chemical equilibrium-ka todobadaas cashar uu ka kooban yahay chemical equilibrium-ka chapter-ka markuu dhamaado kadib waxaa macalinka laga rabaa inuu ardayda gaarsiiyo objectives-ka sidaan hore u sheegnaba macalinka waa meesha ugu muhiimsan ee macalinka laga rabo inuu aad u fiiriyo laga rabo marka macalinka markuu dhameeyo chapterkan dhamaadkiisa kadib ardaydu waa inay yaqaanaan ama ay sharxi karaan reversible reaction waxa la yiraahdo sidoo kale inay equilibrium-kana ku xiri karaan reversible reaction-ka inay equilibrium-ka la xiriiri karaan sidoo kale chemical equilibrium waxa ay tahay iyo rateska sida isu saameeyaan rateska iyo chemical equilibrium-ka sida isu saameeyaan sidoo chemical equilibrium-ka on the basis of different phases in chemical equilibrium-ka ayadoo phaseska ama stateska ayadoo loo eegaayo in la qaybiyo chemical equilibrium-ka loo qaybiyo homogeneous heterogeneous loo qaybiyo divine chemical equilibrium constant-ga in la qeexi karo kadibna equilibrium constant expressions in la qori karo ardaygu uu qori karo sidoo kale chemical equilibrium-ka inuu isticmaali karo xisaabin karo chemical equilibrium inuu saadaalin karo direction-ka reaction-ka uu soconayo markii janji lagu sameeyo ama factor hadduu imaado wax saameeya equilibrium-ka hadduu imaado direction-ka u dhaqaaqa marka prediction-kaas inuu sameyn karo arday direction-ka reaction-ka u dhaqaaqaya haddii maalan temperature-ka ama wax factor oo bedeli kara hadduu meesha imaado direction-ka u dhaqaaqayo marka jihada u dhaqaaqayo inuu prediction ku sameyn karo ardayga taasa marka laga rabaa okay tusaale ahaan aan soo qaadano casharkan oo ah reversible reaction iyo equilibrium marka casharka sidaan hore u sheegnay markii casharka la sheego waxaa ku xiga objectiveskiisa casharka marka casharkaas oo kale waxaa la rabaa inuu possibility of the reaction inuu sheego arday reaction-ka 3 possibility uu leeyahay inuu dhaco oo dhamaado inuu dhaco dhamaad gaarin iyo inuu bilkuliyan dhicin saddexdaas aan dhici karto saddexdaa inuu sheegi karo ardayga casharkan saas laga rabaa marka midka dhaco dhamaada irreversible reaction waaye midka dhaco laakiin dhamaadka aanan gaarin waa kan equilibrium-ka noqda ee barta uu gaarayo oo dhamaadkan aan ahayn oo uu gaarayo noocaas oo dhacayo dhamaanay barta uu gaarayo waxa loo yaqaan equilibrium loo yaqaan equilibrium-ka meesha ka soo galaa
reactionada noocaas oo kale oo dhacaan oo laakiin dhamaadka aan gaarayn waxaa loo yaqaanaa reversible reactions aa loo yaqaanaa sidoo kale isbarbardhigi karo reversible iyo irreversible reactions isbarbardhigi karo ardayga waxaa kaloo laga rabaa reversible reaction iyo how it relates to equilibriumkiisa inuu ku xiri karo waxyaalaha laga raba ardayga taas okay marka casharkan marka si aad u bixiso waxaa samayn kartaa discussion iyo waxaa raaci kartaa presentation discussion inaad samayso iyo presentationna waa sidaan hore u sheegnay casharka ka horba waxaa lagu siinaa activity-gaasaa kuu sahlaya inaad discussion ardada kaalintooda aad ka siiso oo discussion ku sameeyaan taasaa kuu marka sahlayso oo discussion waa kaa marka casharkii hadda oo ahayd reversible iyo irreversible in loo sharxa ardayga la rabay in horta falaartan la kala tuso falaar iyo laba falaar reactionadu way arkayaan laba falaar oo half ah oo hor iyo gadaal u socdaan iyo mid in reactionada kuwan ku jira reactionada qaarkood hal falaar la isticmaalaa in lagu buraarujiyo reactionada qaarkood inay hal falaar isticmaalaan qaarna laba falaar in chemistry markay joogtid labadaas oo kaliya la arkaa reaction hal falaar wadato reaction laba falaar kala wadato oo kaliya la arkaa way dhici kartaa laba falaar mar oo dhinac u badanayso iyo taa iska dhaf laakiin laba falaar oo kaliya iyo hal falaar bis la isticmaalaa laba hal falaar oo half ah iyo hal falaar maxay muujinayaan marka ardayda inay discuss gareeyaan reactionadaas noocaas oo kale ma jiraan oo hal falaar iyo laba falaar hor muu aragteen buwaagta ku aragteen haddaad ku aragteen maxay kala muujinayaan kanna muxuu muujiyaa hal falaar laba falaar maxay muujinayaan falaarta horta waxa ay bilkuliyan falaarta oo dhan reactionada waxay muujisaa saddex shay ku tusay saddex shay oo kaliya ku tusay ama saddex shay oo kaliya qabataa saddexda shay ay qabato waxa waaye kow horta direction of the reaction ay kuu sheegtay direction of the reaction ay sheegay ay muujinay midda kale condition is necessary for the reaction kor ama hoos lagu qoraa conditionska waxyaalaha maalan la rabo reactionkan si uu u dhaco shuruudaha loo baahan yahay maalan catalyst hadduu jiro oo kale heat hadduu jiro oo kale ama delta la isticmaalayo dusheeda lagu qoraa ama hoosteeda lagu qoraa midda kale ay qabato oo maxaan ku yiraahdaa falaarta ay qabato waxay ku muujisaa indicators change waxaan inay isbedeleen sidaan noqdeen ay ku muujinayaan marka falaarta oo kale taas si guud aan wadaagaynay laakiin ardayda marka inaad ku guud maxaan ku yiraahdaa activity-ga la siiyo activity-ga marka la siiyo oo activity-ga gacanta loo sheego in su'aashan ka discuss gareeya falaartan tan maxay muujinayaan direction of the reaction kan inuu laba gees u socdo kan taas way doodi doonaan markay ka doodaan ka niqaashaan falaartan oo dhinacan u socoto waxay muujinayaan inay ka hadlaan horena way soo qaateen falaarahan hore way soo barteen in waxa ay muujinayaan hadda aan sheegayo kale grade 2 alif grade 10 ka aan dhahay ay ku soo barteen grade 10 ama form 2 ay ku soo barteen form 2 ay ku soo arkeen ayagoo form 2 ku soo arkeen ay hadda xusuus u tahay marka hadhow marka waxa ku sahlanaanayso ardayga haddaba aan soo raacno reaction kasto hal falaar ah ku aragto waxaa loo yaqaanaa irreversible reaction hal jiho u socdaa laakiin falaar kasto reaction kasto aad ku aragto laba falaarna waxaa loo yaqaanaa reversible reaction in saasoo kale loogu sheego marka waa kaa meesha casharka meesha kasoo gelisay ayagaa doodeen kaalintooda ay qaateen reactionada jihada waaye kan jihada laba dhinac inay u socotay muujinay kanna falaartas guud ahaanba hataa meel markii la tilmaamayo falaarta inta ka baxa markay ku dhihi rabto kale falaara la istusaa falaarta jihada ku muujinay jihada reaction-ka u socdo reaction-kan dhinacaan u socdaa laakiin markii laba ay tahay labada meel buu u socdaa intan uu socdaa reactionada halka meel u socdo marka waxa ogaataan ardayay waxa loo yaqaanaa irreversible saasaa dhahay marka kan kalena oo labada jiha u socdana reversible reaction jiha labada jiha u socdaa kaas ina saas oo kale aad marka aad maxaan ku yiraahdaa loo soo bandhigo kadibna marka inta saas inuu soo gelisay oo ardayda aad saas ugu sheegtay kale reaction kan marka wuu dhacaa wuuna dhamaadaa kan jihada marka u socdo wuu dhacaa wuuna dhamaadaa sidaas daraadeed irreversible loo yaqaan laakiin kan kale ma dhacaayo sababtoo ah intan uu socdaa dhamaad male maadaama uusan dhamaad lahayn marka wuxuu leeyahay bar oo loo yaqaan equilibrium state
this chapterna wuxuu ka hadlaa bartaas oo ay gaarayaan in here waa kana aad u isticmaaleynaa chapterka intaan ku dhex jirno waa ka marka meeshaas ka gelin kartaa casharka waa ardaygii ayagoo doodeen niqaasheen ka murmeen ama ka doodeen intaba markay sameeyaan kadibna inaad saas oo kale casharka uga xadxadid oo hoosta ka gelisid marka oo ay sidaas marka ku sahashay kaalintoodii way qaateen oo dooday sameeyeen kanay ka qayb qaateen adna kaalintaadii waa qaadatay wixii oo dhan informationkiisa tartiib meeshii ay keeneen ka dhaqaajisay laakiin haddii aad ka soo qaado min abel aad ka soo qaado adile sidid iska wad waay adile wado hawshaad adaa watay laakiin haddii iyagu kula soo qaadaan adna qaybtii kale aad dhamaystirto ila xambaara aad dhahdo hawshu isla qabateen maqane wayna ka activesan tahay waxbarashada hadda buugaagtan marka looga dhigay maxaan ku yiraahdaa salka looga dhigayna student centered asaga inuu ka dhaqaaqdo oo qaybtiisii soo qaato buugana activity lagu bilaabay activity-ga ka dhigaya marka in kaalintiisii uu qaato haddii marka activity-ga aad bilkulinka tagtid waxay noqonaysaa in kaalintiisii aad ka tagto student centered-kii dhahayana marka in booska ay ka baxdo marka in ardayga agtiisa maadaama uu waxyaalo ku caawinaya jirto marka isticmaal activity-ga isticmaal way ku caawinayaan activity-ga koox inaad ka dhigto ayaga dhinacooda ka soo dhaqaajiyaan markay soo dhaqaajiyaan kadib inaad u dhamaystirto adiga niqaash siisid ardada hadlaan ku dhiirigelisay inay hadlaan tiimkaas oo kale gruubyadan iska bedel sidaan hore u sheegnay taktiigii hore u soo sheegnay gruubyada inaad iska bedeshid taas waa wax fiican okay kadib markii casharka sidaas oo kale aad bixiso in aad qiimeyso cashar without qiimeyn cashar kuu baxay oo aad qiimeynin waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisoo karo marka wixii aad bixisay in markaasi maxaan ku yiraahdaa faa'iido lahaayeen oo ardayda u gudbeen waxaad ku ogaan kartaa buuggan uu ku caawinayo exercise ku siyaa oo casharka markuu dhamaado ahdaaftii casharka in la gaaray inaad ku xaqiijin karto adiga samaysan karo exercise kaas oo kale adoo Bloom's taxonomy isticmaalayo sidoo kale chapter review questions oo kale chapterka markuu dhamaado su'aalooyin badan oo ku yaalaan jirto oo soo qaadan karto ardaygana weydiin karto kuna qiimeyn karto marka ay sameynayaan maxaan ku yiraahdaa activity-ga ay sameynayaan indhayso oo aad dhex gasho su'aalo weydiiso sida ay u sameynayaan ku caabiso sidaa sameeye aad dhahdo taa waxaa sameyn karta observation aad sameyn kartaa midda aan sheegayna iyo exercise iyo chapter review questions okay cashar kale aan tusaale soo qaadano casharkan oo kale types of chemical equilibrium equilibrium-ka noocyadiisa in la qaybiyo chemical equilibrium-ka meeqa nooca loo qaybiyaa haddaan dhahno homogeneous chemical equilibrium heterogeneous chemical equilibrium waxaan u fiirinay phase waxay noqonaysaa ardayga kaalintiisa way ka baxday kaalinteedan qaata bis macalinka kaalintiisa waa qaadatay ma qaldanid macalinka kaalintiisa waa qaadatay oo ahayd ardaygii casharka inaad u sharaxdo si fududna ugu sharaxday laakiin kaalin in laga siiyo al rabaa ardayga sidee loogu siinaa marka buugan dhabtii uu ku caabina haddii aad si fiican u daraasayso ama qaabka u dhisay markaad fiiriso oo ah student centered aad ku caabina waxaad مثلا kan markaad bixin rabto casharkan la bixin rabo kale casharka wuxuu ku siinaa points-ka aad la rabo inaad xaqiijiso concept-ga aad xaqiijin lahayd uu hoosta kaaga xariiqa sababtoo ah casharka kadib objectives uu ku siinaa waxaa laga rabaa macallino in aad gudbiso casharkan markaad joogtid chemical equilibrium adoo ku saleynayo different phases solid liquid gas adoo ku saleynayo inaad qaybiso chemical equilibrium marka ardaygu waa inuu qaybin karaa isagoo u fiirinayo base-ka dhiganayo stateska ama phaseska isagoo oo base-ka dhiganayo waa inuu qaybin karaa markuu casharka dhameeyo kadib oo casharkan dhamaado kadibna waa inuu sidoo kale isbarbar dhigi karaa waxa ay ku kala duwan yihiin homogeneous iyo heterogeneous chemical equilibrium labada nooc waa qaybintooda inuu sheego markuu qaybiyo kadib haddana inuu iyaga isbarbar dhigo homogeneous equilibrium iyo heterogeneous equilibrium waxay ku kala duwan yihiin haddana isbarbar dhigo kow inuu qaybiyo kadibna isbarbar dhigo okay marka inaan hor ka dhihin chemical equilibrium-ka waxaa loo qaybiyaa labadaas oo keliya hor ka dhihin
marka wixii laga rabaa lagu sheegaa kadibna qaabka aad u mari lahayd waxa ugu fiican in discussion aad u marto iyo presentation ardayda niqaash geli buugan uu ku caawinaa sidaan sheegnay oo casharka markii waxyaalaha aad laga rabay hoosta kaaga xariiqo haddana discussion oo kale inaad marto oo ardayda aad ka qayb geliso oo kaalintiisa uu qaato wuxuu ku siinaa oo ku bilaabaa activity ku bilaabaa without activity casharka badana lama bilaabo ama activity lagu bilaabaa oo ah niqaash in ardayga la geliyo ama experiment oo ah tijaabo in la tuso arday tijaabo ama asaga uu sameeyo ama la tuso ay ka bilaabataa ilan taa waxay keenay ardayda naftirkiisa in buuga uusan ku ekaanin sameeyo isaga laftiisa ilan mar kastaba isaga sameynaa maskaxdu karina marka heer wuxuu gaaraa creativity uu gaaraa marka inuu hal abuur sameeyo oo ardayga kaco marka aqoontu inay soo dhaafto maxaan ku iraahdaa buuga soo dhaafto oo ay nolol maalmeedkiisa ardaygu isticmaalo waxaana aad muhiimsan macalino in ardaygaagii aad u train garayso life-ka outside from the schoolka ka banaanka inaad u train garayso oo wixii aad bartay beri inuu tadbiiqin karo wax samayn karo hal abuuri karo in qof noocaas oo kale soo saarto hankaagiina heerkaas uu gaarsiisnaado adoo isticmaalaya Bloom's taxonomy inaad markaasi ardaygaagii dhistid aad u dhistid marka activity-ga ana isticmaali kartaa activity waa okay in ardadii aad qaybiso kadibna physical status-ka okay inay identify gareeyaan ardaydu hore u soo qaateen tan maxay u taagan tahay tan maxay u taagan tahay tan maxay u taagan tahay markaad fiiriso in this reaction how reactants-ka inaad su'aalo weydiiso qaybtee reactant ah qaybtaana reactant ah macaan qaybtee product ah qaybtaana product ah falaartan maxay muujinaysaa reaction-ka inuu hore iyo gadaal u socdo aad ka qayb gelinayo okay hadii marka muhiimadaadii in states-kii inuu cadeeyo hadhowna marka kuwan isku state miya ma different state waa different state haday yihiin heterosoma waa kala duwan yihiin hetero kuwan oo kale oo falaartan oo kalena ku jirto falaartan haday ku jirto oo haddana maxaan ku iraahdaa state-ka kala duwan yihiin maxaan dhahaynaa marka way kala duwan yihiin soma wax kala duwan maxaa la isticmaali jiray hetero waa marka kuwan heterogeneous okay kana kala fiir solid asaa sheega gas liquid okay reactant-iga iyo product-iga dhammaan markaad fiiriso isku same state miya may different states ku jiraan solid ku jira liquid gas okay noocan oo kale waa heterogeneous chemical equilibrium loo yaqaana hay kana fiiri dhammaantood waa okay waa hada dhammaantood waa heterogeneous waa homogeneous ama ku jiro haddii mid ka mid ah mesela hada tan oo kale oo gas tan marka qaar liquid maxaan ku iraahdaa liquid waa water markasta waa liquid okay dhammaan hadda waxa inta ku qoran dhan waa hetero homo dhan ma ku jirto marka kala duwan yihiin okay dhammaan hadday kala duwan yihiin waa hetero marka inaad saas ku soo gelisid laakiin iyaga maxay sheegeen state-yadan ay sheegayaan aqueous solution liquid inay iyaga sheegaan okay isku state miya maya different states waay iyaga ku dhihi doon hadday different state yihiin hetero aan lahaynaa hadday homo yihiinna oo isku mid yihiinna homo aan lahaynaa meeqa hadda u qaybin karnaa marka ardayga waxaa loo qaybin karaa labo oo kale ah heterogeneous goormee la dhihi karaa markii ay isku mid yihiin state-yada meesha ka qayb qaadanaya dhan species-ka reaction-ka ka qayb qaadanayo dhan same state hadday yihiin waxaan leenahay homo aan leenahay hadday kala duwan yihiinna hetero aan leenahay macalin ayagaa ku dhihi doonaba okay saasaa ku qaymisay marka haye aan hadda fiirina marka wixii aan sheegnay oo kaasaa marka aad u xisaabin kartaa ama aad u dhihi kartaa marka okay kadib marka waxaa dhahaysaa assessment yaa ku sameynaya marka waxaa muhiim ah inaad assessment ku sameyso assessment sida hore u sheegno exercise-ka intuu socdo activity-ga uu socdana u tag ardada activity kala qayb qaado su'aalaha weydii sida hadda aan weydiinayno oo kale su'aalaha hoostiga geli waxaad dhahdaa kan maxaa waaye kaas ma su'aasha hadda sidaan weydiinayn oo kale kuwa ardada kadibna record gareey ardada su'aalaha jawaabta ay ka bixinayaan ardada kala record gareey exercise qiimee hawsha markaad gudato
ma baxay isqiimee adii laftaada isqiimee oo methodka aad raacday maanta oo kale ama fasalkan aad ku raacday method fiican muu ahaa ardayda aad ma u fahmeen casharkaagii mala fahmin miyaa intaba qiimee marka buuggan uu ku caawinaa su-aalaha ku yaalaan su-aalahaas isticmaal jabtarka dhammaadkiisana su-aalaha ku jiro waa isticmaali kartaa ayagana jabtar review question jabtarka ahdaaftiisoo dhan inaad markaasi inay fushay in kale jabtarka waxaa ku xaqiijin kartaa su-aalahaasaa ku caawinayaan inaad xaqiijiso sidoo kale aad nas isticmaal oo diyaarso marka jabtarkan halkaas ku keeno halka jabtarka kale aan u gudbaynaa isa xalqada waana jabtarkii ugu dambeeyey ee form 4 waa nuclear chemistry waa branch aad muhiim u ah branchiga nuclear chemistry-ga waxaan kusoo bandhigaynaa ilaa iyo wuxuu ka kooban yahay 6 cashar ka kooban yahay 6 cashar kadibna chapter review question uu kusoo gabagabeynaa jabtarkan markii uu dhammaado kadib waxaa laga rabaa in ardada ay yaqaanaan radiation waxa la yidhaahdo radiationska inay yaqaanaan alpha beta iyo gamma radiations sidoo kale nuclide-ka in macnaha nuclear componentska inay yaqaanaan iyo sida nucleuska uu kala jabayo oo reactionada hadhow ka dhalan doono fission iyo fusion intaba way inay yaqaanaan waxaa kaloo muhiim ah in nuclear equationka inay qori karaan nuclear equationska iyo inay balance garayaan sidoo kale mass iyo energy-ga inay isku xiriirin karaan mass iyo energy in relation to mass and energy inay shaqeyn karaan ardayda inta laga rabo taas waa tusaale ahaan aan soo qaadano introduction to nuclear chemistry intaadan nuclear chemistry aadan qeexinba مثلا nuclear chemistry aad rabtaa inaad barto casharkan tusaale ahaan marka ardayga nuclear chemistry waa chemistry-ga ka hadla changeska ku dhacaya nucleuska structure of the nucleus change taasoo kale intaan la dhihinba nucleus la rabo barnaba soo objectives markaan rabo inaan qeexo oo kale oo nucleuska مثلا aan rabo inaan qeexo by the end of the lesson the learner should be able to casharka markuu dhammaado kadib ardayga waxaa laga rabaa nuclear chemistry inuu qeexi karo inuu isbarbardhigo nuclear reaction iyo chemical reaction inuu isbarbardhigo waa laga rabaa nuclear reaction hor ha ka qeexin marka waxaa isticmaashaa discussion method isticmaal student centered isticmaal discussion ha mashquulaan ardada ayaga ha hadlaan waxa ka sheegaan waxa ay ka yaqaanaan ayaga ha hadlaan laakiin in waxa uun iska sheegaan maaha adaa gaadgareynayo ahdaaftaasi ha ku hayne oo hadda la sheegay inay wax uun iskaga hadlaan lama rabo sidee u hadlayaan haddana waxaa ka hadalsiin doono activity-ga ka hadalsiinaya marka activity-ga ka hadalsiinaya activity-ga ku doodayaan activity-gaasa marka waxaan ku idhaahdaa ay ka niqaashayaan markaasaa activity oo kale hadda maalan nuclear components of the atom atom ay yaqaanaan nuclearka atomka structure of atom ay hor usoo qaateen ardada structure of the atomka inuu ka kooban yahay nucleus iyo shells ay yaqaanaan nucleus iyo shells inuu ka kooban yahay yaqaanaan way ku sheegaan ayagaa sheegaya marka structurally nucleuska maxaa ku jiro 3 shay way ku jiraan ayagaa ku sheegi doona ardada dawadiisa waxaa ku jira kuleeyihiin 3 shay ku jiro oo kala ah proton waa laga helaa ama 2 shay ku jira aan dhaho electronku intay ku jiraan laakiin nucleuska waxay ku sheegaan proton iyo neutronka nucleuska ku jiraan ay ku dhihi doonaan proton iyo neutronka waxay ku jiraan nucleuska ku jiraan nuclear components ka kuwa ama marka intaas markay ku sheegaan kadib chemical reactions ka markay dhacayaan fiiso chemical reaction ka markuu dhacayo bond ya macnaha chemical reaction ka markuu dhacayo sida la og yahay 3 shay ayaa dhacayso chemical reaction involves 3 steps 3 step ku dhaca waxaa dhacayo breaking all bonds chemical reaction dhan markuu dhacayo breaking all bonds bondigii hore inuu jabo rearrangement of atomyada inay dib isu habeeyaan soo kadibna
formation of new bond cusub inuu sameeyo marka fiiriso marka bond yaa sameeyay electrono ama share ha ku ahaado ama loss ha ahaado marka waxa ogaata chemical reaction ko dhan bond inuu jabo bond inuu sameeyo arrangement inuu dhaco bond maadaama uu ku lug leeyahay sameyntiisa iyo burburintiisa waxaad fahmaysaa meesha in electron uusan ka marnayn sidaas daraaddeed maadaama uu electron ka marnayn waxaad ogaataa chemical reaction ko dhan intuu ka dhaca marka hiyo marka shares ko ka dhaca okay marka gibe xataa farqiga fiir chemical reaction shares ko ka dhaca laakiin nucleus ko kale atomyada qaarkood ama isotopyada qaarkood waa stable waay qaarna unstable kuwa unstable ka ah nucleus kooda waa wili markii ay kuwan aad iyo aad u kala fogaadaan kuwan isku dhow yihiin tirahan markay aad isugu bataan ay aad u kala bataan ratio-gooda aad u kala bato unstable oo naqana 82 iyo wixii ka sii xageeyo oo kale unstable oo naqana nucleus unstable haduu noqdo ka hooseeya marka radioactivity marka nucleus-ka inuu markaas maxaan ku yiraahdaa hadhow marka oo instability uu ku dhaco oo nucleus-ka ka soo daayo alpha beta gamma inuu soo daayo marka reaction-ka waxaan ogaanaynaa chemical reaction marka ardaygu wuxuu sii ogaanaa chemical reaction inuu shareska ka dhaco hadhow farqi uu sheegi karaa kana marka nucleus-ka naftirkiisa markuu aan stable noqdo oo uu qarxaayo reaction-ka noocaas oo kale ee nucleus-ka ka dhacaya waxa loo yaqaan nuclear chemistry ama nuclear reaction haye nuclear chemistry wuxuu daraasayaa amal nuclear sida ka muuqata nuclear wajida nucleus-ka waa sama nucleus reaction-ada ka dhaca nucleus-ka ayuu daraasayaa nuclear chemistry insaas loo ogaado marka hadhow qeex markii la uu baqeexi karaa marka ardayga insaas oo kala qaab noocaas oo kale ardayga marka casharka loo hoosta loogu soo geliyo kadibna qiimeyn casharka markuu dhamaado markasta qiimeyn samay observation oo indhayn ah inta uu wado maxaan ku yiraahdaa activity intuu wado kale inaad saas u qiimeyso sidoo kale exercise-ka in casharka ahdaaftiisa la gaaray kuwa caawinaya weydii ardayga exercise-ka buuga ku yaal sidoo kale waxaad isticmaali kartaa su'aalaha ku yaalaan maxaan ku yiraahdaa jabtarka dhamaadkiisa kale inta soo qaado weydii ardayga waxa kale markaa aad isticmaali kartaa ahdaafta jabtarka oo dhan inay gudbeen inaysan gudbin diyaar rabto inaad ogaatana isticmaal maxaan ku yiraahdaa jabtar review questions macallin aad u mahadsantihiin dhammaantiinaba xalqadeenan halkaan ku soo gabagabeyn doonaa tababarkeenna halkaan noogu ekaan doonaa insha Allah tan iyo kulanto dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi